sheegay maalin dambe xaaskaaga maalin dambe hadday soo wacdaan ku yidhi xaaskaaga waxaad ogaanay inay kaasankayga tahay wax kaasin la dhahaa iska yar baraada shalay markaa inta كازن fiiri war xaniyahaaga banaanka soo dhigay واو shalay معودة. markaa joogtay كازن كيغا كحابه يا ابو باي باي Soomaali way ku ogaatiin inaa ruufiyaan tahay brother ruufiyaan oo aan laga ruufiyaan saneenoo diracyada iyo kastuumooyin ku jira kaazinkeyga inaad xaniyaha banaanka soo dhiganaya agana dhig gabadha ama paracetamol oo aniga saaxiib aan mooday oo walaal mooday oo ehel mooday oo qaraabo mooday maanta waa kana guriga ku kalgasho muddo 5 beri waxaan ku dhex jiray daraama aan dhammaanaynin maxaan paracetamol waa nin xaafadaha iyo guryaha la isku qabo always aan ka dhammaan gabadhii aan aad ku jeclaayo marwadeeda ahayd oo gurigeyga maanta saas u ka dhigay dhib ma laha gabdhaha Soomaaliyeed ilaahay baa badiyay marba aday taagan tahay xaaskeyga xalaasha ahayd inaan maxamed paracetamol ahaynba mas'uul iga maaha anigu gabar mas'uulkeeda waxaan u aqaanaa waalidkeed iyo adeeradeed iyo walaaladeed wixii ka soo hara Soomaa anigu mas'uul uma garanay maxamed paracetamol anigu mas'uul ima aha adigana ma ku noqon karo maya maxamed paracetamol mas'uul iya taasi way ka soo tagtay gabadhii maxamed paracetamol bay waxay ku tiri ninkan ha idhigo akhara waa isu istaajina codkana waa yaala waxay tiraahday ha idhigo asagana wuxuu dhahay gabadha anagoo ilma adaradeeda baa gabdhaha karabka taagana dhig gabadha ani hal qof aan ahay 4 qof uma jawaabi kari 4 qof ay isku ka soo baxeen 4 qof waa la iska kaheliya 4 dhinaca la iga soo galaa 150 video 150 cod qof walba wuxuu leeyahay gabadha iska dhig maxamed paracetamol aba la soo wakiishaba asaa wakiil u baahanba gabadhan maskiinta oo Jarmanka joogto qatano baahano waxba haysanin iyo asagiyo shaqo tageen asagiyo aba faqri ku noolbe markaas gabar meeshana waxay ka dhigatayba mas'uul anu maxamed paracetamol de mas'uul imaa maxamed paracetamol isidka Mansoor markuu imaanay am the only one caawiye gurigiisa hadda uu dhistay dhaqan Mansoor waxa laga yaqaanaa qofka markuu guri dhisto waa loo shopping garayaa 10 kun oo aniga ii ka baxan ilaahay sadaqa Allah kaaga dhigo adiga iyo noocyadaada kale tan ani inaan bartama annaga garbaheeda taagan gabadhan aniga waan kala tagnay garbaheeda adaa taagan tahay hal lagu arkaa bo ha lagu arko garabkeeda si fiican ay asagana dhex martayna gabadhan walaasheena oo dumaashideena Naciima Joker baa booska ka baxday asaga saas ku soo galay moogiye ani iyo asaga xayisiin maba isku adin Naciima Joker ay joogi lahayd asaga maba la arkeen be asaga waxaan dhaaliyo booskan waa banaanay qof le iska gali asaga yaa soo galay masiibo ila soo galay jeegagiisa ilaa hadda way yaalan taksirtaankina waba ka dhaartaba war America wax ma la kala qariyay lacagaha qaadatay zeel ku qaadatay abo zeelna waa la soo print gareena social security-ga lagu qora aday ku sugay brother ani ima sugaysay lacagaha cunta aday ku sugayeen mideeda kale the difference between you and me wax kale tama difference-gana waxa waa aniga googaradaha iyo diracyada iyo kastuumooyinka iyo raajabeetooyinka iyo tambooniga shaqo ku mile gabdhaha la qabana maba wacdaba ani teleefankayga hadii la baaro single ladies saas soo boodaya wada masiibo ila soo galay jeegagiisa ilaa hadda way yaalan taksirtaankina waba ka dhaartaba war America wax ma la kala qariyay lacagaha qaadatay zeel ku qaadatay abo zeelna waa la soo print gareena social security-ga lagu qora aday ku sugay brother ani ima sugaysay lacagaha cunta aday ku sugayeen mideeda kale the difference between you and me wax kale tama difference-gana waxa waa aniga googaradaha iyo diracyada iyo kastuumooyinka iyo raajabeetooyinka iyo tambooniga shaqo ku mile gabdhaha la qabana maba wacdaba ani teleefankayga hadii la baaro single ladies